alla wuxuu uhi wa'mur ahlaka biالصalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqan naxnu narsuquka waalcaaqibatu litaqwa ehelkaaga amar salaada kuna sabir arsaaqad ku weydiisan mayno annagaa ku arsaaqayna ogowna cidhibta dambe in alla kacabsigii ehelkiisu inuu yeelanayo marka halkaa rabbi waxa uu faray nebiga sabir baa la faray naftiisii uu ku xejiyo ku adkeeyo cibaadada ehelkiisu ay la wadaagaan waxaa ilaahay uu soo geliyey aayadda arrin la xidhiidha arsaaqadda annagaa ku arsaaqayna addoommaha ilaahay wuu yaqaanaa in fara badan waxa ilaahay seejisay oo diintiisa seejisay arsaaqadoon dadka qaarkood baa laga yaabaa markaad diin kala hadasho ee dacwad kala hadasho ee cibaado kala hadasho inay ka cawdaan arsaaqadda oo dabeedna uu qofku idhaahdo arsaaqadii baa igu adag maxaanu salaatukanaa bariiskiiba ma hayne ayaa laga yaabaa dadka qaarkood inay ku idhaahdaan waa arrin nasiib darro ah ilaahayna xogogaal buu yahay oo markaasaa wuxuu udhi laa nas'aluka risqan naxnu narsuquk annagaa ku arsaaqayna arsaaqad ha ka warwarin waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu intaasuu ilahay isdaba dhigay qofka ilaahay ka cabsada makhraj buu siinayaa makhraj mushkilad kasta meel uga baxo hadduu arsaaqad ka warwarsan yahayna wuxuu ka arsaaqayaa meel aanu filaynin ilaan ilaahay baa ayaa qasnadaha arsaaqadda gacanta ku hayo iska leh waman yatawakkal cala allaahi fahuwa xasbu cidda ilaahay tala saaratana wuu ku filan yahay intaasoo bushaaraa ilaahay uu qaaday subxaanahu wa tacaala